أنتي أو مالين جمعة وأن أجنه شقلة ولقوا مقنع أو ما ركتي مالين قبوا إيتهاي وإنت ريتهاي هرتوان كم هذا علينا إن عاد كسوقيب قشان حفلة دن قروح ذا بدن إن وحيابا بدن وشيء لها ولا يجهر مري ولا يجهر معني ولا يجهر قاتي لكن هل مدن بانك هالليا تاو حويان إن سومالي هدان هاي هرتا إن ظلميجا أيان سكو إيجنا هدان ظلميجا مرة هرك جلجلن لهين waxyaabo badan oo nagu dhacay nagu ma dhici lahayn marka ninka halkan caawlo taagan yahay Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame waa dulmi badan oo fara badan oo lagu eegtay wuxuu yeeshay macnaha tafiskin uu ka soo baxay waana calaamadaha leadershipka lagu yaqaano qofka inuu yacni uunan aargoosanin uunan dadka xagxaganin marka waxaan leenahay diinta laga saaray character assassination lagu sameeyay nafsadiisa la dili gaaray waxa soo dhan wuxuu kaga gudbay inuu yiraahdo waan cafiyay oo shakhsi ahaan waxba uma haysto aniga dadkii laakiin dadkii dambiga ummadda Soomaaliyeed ka galay markii dawladda Soomaaliyeed timaado wala keeni doonaa cadaaladda because you're innocent until proven guilty يعني waxa weeyaan law and order markuu wadanka u soo noqdo waa lagu soo dadkaasi waa la soo qaban doonaa ama xasaanad xildhibaannimaha ku dhuntaan ama waxay ku dhuntaan ama aan noolaan ama aan dhimano someday waa la keeli doonaa sharciga taasan aaminsanahay laba daqiiqo iyo 3 daqiiqo waxa ma leenahay aad u yartahay arinta laga hadlaya arin aad u qaraweyn oo aad u qoto dheer weeyaan laakiin markan dhulkan westernka joogno iyo markan islaamkii eegno labadaba dulmigu waa wax aad u xun waxa jira xadiis nabiga kaleey salaatu salaam uu dhahayo man dabba an irdi aqihi kana hijaban lahu min an-nar yani qof walaalkii ah sharafkiisa ama irdigiisa yiraahdo war hala daayo deynta uu dhahay hala daayo kaliya xijaab ay naarta uga noqonaysaa marka imagine qof walaalka ah oo aad tiri hala daayo hadii adoo dhinta xijaab naarta kaaga noqonaysaa adduunkana kale waxbay kaaga taraysaa marka waxa ku soo gabagabeynayaa Martin Luther King Jr oo wada naqaano oo ahaa nin social activist oo dadkan madu aad ugu dooday xigmad aad u yaani qoto dheer baa laga hayaa oo ah maaragtay injustice anywhere is a threat to justice everywhere macnaheeda what does that mean literally it means what it means macnaha cadaalad darro meel adduunka kamid haday ka jirto waxay halis ku tahay meel uun adduunyada kala ah oo yaani hadaa cadaalad darro halkan aad ku eegatid dad lagu hayo adigana way ku soo gaaraysaa bari aayada quraanka aan waxay leedahay wattaquu fitnatan la tusiibanna alladheena dhalamu minkum qaasa hadaa eegtid way iskeenayaan dadkan westernka hadaa fiirsid waxaad arkaysaa in quraanka barteen inay ku dhaqmeen inay xigmada halka kala baxeen marka horta waan ku dheeraaday taas waan soo gabagabeynayaa 3 daqiiqo way igu yartahay waxaan jeclaan lahaa waxyaabo badan arrimaha bulshada inaan ka hadlo aniga background-kayga inta history-ga aan aad yani Soomaalida u bartay oo aan wadanka markaan ka soo qaxayno Soomaaliya anagoo yar aan ka soo qaxno halkan aan secondary aan ku dhameeyay aan jaamacad ku dhameeyay ku guursaday ciyaal aan ku dhalay haddana waxaan ahay dadka taariikhda Soomaalida aad u jecel haday tahay tan waqooyiga koonfurta centralka ogaadeen everywhere aad aan akhriyaa background-kaygu waa caafimaad. And even though last year I have a political science graduate of Metropolitan University haddana more like a humanitarian ayaan jeclahay ma raba inaan siyaasad aado waxaan jeclahay inaan ka bilaabo dhulka waxaan ka shaqeeyaa one of the biggest hospital in the state of Minnesota called Regions Hospital yani waxaan weydiisan rabaa NGO-ga waan arkaynaa 230 milyan hadda Soomaaliya hadaan adag tahay NGO si loo furaba laakiin waxaan rajaynayaa in aan number of organization furo aan ku noqdo especially dhulka Soomaaliyeed abaaru ka taagan tahay gobolada dhexe oo dadkoodu ay abaaro iyo saameeyeen iyo dhibaatooyin badan iyo meel kasta oo Soomaaliya koonfur aniga originally ay xamra ku dhashay laakiin yani aabiyo hooyo waxay ka yimaadeen meelahaas korkore marka موضوع مرة بين عن كبحة وحنوم هذا علينا أو ربعنا نوم هذا عليو إن الله أنت كسوقي بقاعدتي إنه عبد الرحمن عبشكور ورسمه وكرسي قاعد كسوبحه هل كان وحنا ما هاد جار وقدر يا قدوميها وحير يكاد وحير 2 more minutes هل كان وحنا وقدر يا قدوميها I think doorashooyin ka gal mudug ninka la yiraahdo Maxamed Daahir Guuleed oo ognahay inuu dhibaato aad u badan u maray in Cabdiraxmaan cadaalad u helo isagoo institution dawladnimo lagu la dagaalamayo waliba waxaan leenahay nimanka kale oo odawaa ku jiro oo fiqi ku jiro oo ay ku jiraan dadkii la dulmay waxaan ognahay beela la dulmay inay jiraan waxaan rajaynaynaa in dadkan dib loo soo celiyo oo si saraaxad leh ay ku qaataan kuraastooda
waxaan u mahad celinayaa odayaashii ergada ahaa bijifooyinkii la lahaa Cabdiraxmaan Cabshakuur ee gartay markuu isi soo taagay ninka maqaam kale because kursigan wuxuu ahaa kursi Soomaali oo dhan indhaha ku hayso ma ahayn kursi gobol ma ahayn kursi degmo wuxuu ahaa kursi Soomaali oo dhan ay indhaha ku hayso waxaana keenaya kursiga ma waa qofka meesha ku fadhiya ayaa ahaa qof aad u qiimo leh oo Soomaali oo dhan ay jeceshahay waan uga mahad celinaynaa ergadaas waxaan leenahay waxa soo saarteen nin maaragtay Soomaali jeceshahay oo wax u qaban doona waayo Cabdiraxmaan Cabshakuur ma aha nin qabiil waa nin qaran waxaan maaragtay ku soo gabagabeynayaa Cabdiraxmaan Cabshakuur mar badan kursigan wuu raadiyay waa nin aqoon-yahan waa nin dadka ay jecel yihiin laakiin markay noqoto doorasho iyo madaxnimo wax weyn xaq Ilaahay un bay ka timaadaa marka waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa hadduu Soomaali mid isku midayn kara oo wanaag u wada oo isku keeni kara oo dhibaatada maanta Soomaali haysata ka bixin kara hadduu yahay Cabdiraxmaan Cabshakuur inuu Ilaahay kursigaas siiyo because mulkiga xagga alluu ka yimaadaa tuuti mulkul man tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa macnaha qof baa iska jeclaan inuu madax noqdo laakiin ma noqonayo qofka Ilaahay ugu talagalay un baa noqonaya waxaan ku soo gabagabeynayaa last but not least waan waqti badan qaato last minute waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaalida waxay dhahaa fulay xantiisa ma moogaal yiraahdaa haddaan nahay beesha Cabdiraxmaan Cabshakuur ka soo jeedo waxaan lagu xantaa inaan ninka anagu gacan bidixayna inaan rabin inuu xildhibaan yimaado haddaba ummadda Soomaaliyeed last 3 weeks hurdala'aan baan ugu dhacday dhiikar baan ugu dhacay waa soo saarnay ninkii gobolka waa ka soo saarnay parliamentarian baan ka dhignay naga qabsada waxaan rajaynaynaa ninkaas maadaama uu nin Soomaaliyeed yahay inaad u istaagtaan waxaan ku soo gabagabeynayaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaa jirtay gabay oo islaamadii nugaal ama mudug mid kamid ah markuu ka soo doontay faras way aad u jeclaa oo la dhihi jiray xiin faniin ayaa waxaa jiray inuu gabay aad macnaha u fiican uu tiriyay aad u xasuusto gabaygii laakiin waxaa kamid ahaa ereyadiisii oo ka bilaabanayay hal tidcun baan ka rabaa gabaygaas xayo faaraxo hadal rag waa loo xutubiyaa nin xishoonayaan ahay haddaan leexasdayna xabiib baan ahaa jeer kufriga laygu xaasidayay that means nin kasta oo Soomaaliya oo isu taago inuu gumaysi la dagaalamo waa la xaasidayaa turuntura loo dhigaa sida Cabdiraxmaan Cabshakuur oo kale isbaaro loo dhiganayaa laakiin dadaal ayaa lagaga bixi karaa marka halkan weeyaan meeshan ku socdo tuduucda ugu dambayso oo ah xarigiisa qabo aadmi kale kuma xushmeeyeen buu oranayaa marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey Cabdiraxmaan Cabshakuur waa idin keenay waa nin qaran nin qabiil ma aha naga qabsadaan leenahay masaajidka ciyaarta ka daaya naga baandheeyo bahasha ninkana soo saara assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh